markabkii ugu weynaa ee koontiinarada qaada ee dekada weyne berbera ku soo xidha abid ayaa galabta soo gaadhay dekada berbera markabkan oo sida in ku dhow 1400 oo koontiinar dhererkiisuna yahay 210 magaciisuna yahay Busan Trader markabkan ayaa soo maray dekada waaweyn oo caalamka kamid ah maarayaha dekadaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdullaahi iyo mas'uuliyiinta kale dekada oo goobjoog ah xidhitaanka markabkan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay caalami waxaan soo xidhnay maanta markabkii konteenarada kii ugu dheeraa abid ee dekada ku soo xidha ee dhererkiisuna uu yahay 210 mitir tirada konteenarada uu Suudaan uu yahay 1393 1400 konteenaro dhow sidoo hore loo sheegay konteenarada ugu badnaa ee soo gaadha dekadu inta jirtay waxa ahayd markabkii siday 700 710 meelaha laakiin maanta waa double يعني awoodda ay dekadu u yeelatay inay qaabili karto maraakiib waaweyn shaqaaluhuna u tababaran yihiin ayaa cadeynaysa maanta runtii shaqaalaha dekada berbera qaybta marinesku way ismuujiyeen waxaanay muujiyeen inay xirfad iyo aqoon badan barteen kalsooni buuxdana ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabto markab kasta oo xajmi kasta leeyahay soo xidhi karaan runtii aniga farxad dheeraad ay tahay maanta waa maalin taariikhi ah waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna tacab badan geliyay shaqaalaha iyo dekadaba run ahaantii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaweynaha dekada guud ahaan gaar ahaan qaybta mariinka oo runtii maanta farxad iyo reereen fara badan gelisay heegana oo 24 saacadood inay soo xidhaan maraakiibta farxada in maanta markabkii ugu weynaa ama ugu dheeraa sida xaddiga ugu badan ee konteenarada maanta uu soo xidhay taasoo 1400 konteenar markabka dhererkiisuna si maaray uu sheegay 210 waana kii ugu dheeraa hoos iyo kor muxuu dherer iyo ballacba runtii marka aad iyo aad bay runtii farxad noogu tahay iyadoo xilliga dambana aan filayno maraakiib kuwan ka waaweyn inaan soo xidhi doono dekada ay ka adeegi doonaan walibana hawshaasi ay si kordhi doonto si badan doonto marka la dhameystiro dhismaha nimanka socda ee dekada cusub ee 400 konteenar 400 mitirka insha Allah taala anagoo fulinayna marka sidii maaray uga sheegay awaamiirta madaxweynaha waxa aanu markaasi xirfad iyo tababar iyo nidaam loo sameeyay shaqaalaha traiska arkaysaan BBE-ga waxaan la yiraahdaa ma garanaysaa dadku inay arkaana iyo life jacket-kii oo iyadana la hayo inta walibana maareenka ku jirtay gelaysa ay joogto waxaanu filaynaa in halka aanu ka sii ambaqaadno ay hore u sii marto insha Allah taala badan yihiin haddii aan ku sheego ilaa China wuxuu soo maray Imaaraadka wuxuu soo maray Jidda wuxuu soo maray Salaala dhulkaas oo dhan buu isu soo maray konteenarada ugu badan ee loo iman jiray hal mar kabsido waxa ugu badnaa 750 konteenar oo hal mar yimi inta kale 600 550 480 waxsa maanta kan wuxuu sidaa 1400 oo dhow oo konteenar ma sha Allah horumarkuna waa socdaa dhinac walba halka wata inooga muuqato dekadii wata bilaabatay oo waa la dhisayaa waa la wadaa wata lagu jiro dhulkii la banaynayo ee la duminaya kaamamkii halka inooga muuqdaan dhawaan waxa noo socota noo imanaysa haddii la yiraahdo 2 bilood gudahood pilot boat weyn oo dalka Ireland lagu dhisayo iminka oo wax yar inooga hadheen insha Allah sanadka dambe taag labaad baan u rajaynaynaa cusub annagoo kaayagii horena noo joogo markabkan ayaa laga yaabaa inuu qaado tirada uu tiro leeg oo koontiinaro faaruqa waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalo xeebta Berbera